dhacdada koobaad ee airportka iga qabsatay barabtanaan kelmadadiisii tuuradiisii xasuusataan hadda waan u soo noqon doonaa nin xoog weyn oo dhukuran oo Soomaaliya iyo airportka markaan joogay khibrad wadaag iyo kulankii 15aad markaa ma sahlana waa halkan Soomaa maalin baynu lahayn kulankii afraad kii shanaad maanta wuxuu marayaa kulankii 15aad waxa marti inoo ah Ismaaciil Aadan Miicaad barnaamijkan oo ogaa meeshuu ka soo bilaabmay oo muddo dhan fikir maalinba waji yeelanaya uu ahaa inuu hirgalo oo uu shaqeeyo oo meelo kala duwan gaaro oo dad fara badani ay ka soo qayb galaan taasi macno weyn bay aniga ay sameynaysaa waayo ma rabo inaan ku tilmaamo yani wala noqday hadalkaasi tura soo bixinay waxaan isleeyahay noloshu waa wada cashar inteena qof walba haddii noloshiisa gaarkii wax laga weydiiyo runtii cashar inta kale ka faa'iidaystaan way noqon kartaa marka inaan idhaahdo xaggaasa wax ku bartay xaggaas waxa iga muhiimsan hadda waxa aniga naftayda cashara ii noqday bal inaan si gaara u soo xulo haddaa la idhaahdo oo si gaara u kor istaago ay dhici karta markaa in cid kalena ay cashar u noqon karto waxyaabahaan is leeyahay qofka aad bay u anfacaysaa waxaa ka mid ah horta markaan dib u xusuusto weligii anoo hal shay qabanaya ma xusuusto mar kasta laba shay ugu yaraan iyaan runtii qaban jiray araartii hore waxaan ka tegey in badan baan barnaamijka dib ugu yaro joogo Axmed Laabal hortan iyo dad kale aynu raadino waa ma jeclay inaan aniga lafteeda ka wadano runtii laakiin ugu dambeyn dee caaway kawaa saaranaan maleynaya waxaad ka naxaysaa runtii aad uga naxaysaa qof intuu jaamacaddii soo dhameeyey xafiiska ku iman ama aad arkayso oo kule weligii wax kale ma qaban cashirka iskoolka ama jaamacadda maahane wax kale oo qabta haba yaraatee ma jirto klaaskii markaan dhex fadhiistay 9kii bishii 9aad 9 aanan sheega maahan dadka qaar bilaabay darbe runtii koowaad timuhu beriga ma halkaas takale labaad waxaan lagu yiri quraanka iyo la iskuma wadi karay iskoolka koow bay ahayd barasho shaqo ku heli maysid iyo shahaadada cid aqbalaysaa ma jirto waa tii banaanka igaga xeersaneed culayska ilaahay soo dareemi kartaan hadda waan soo fuulay ninka wadawaa ninkii xoog weynaa hadhukun waa laftiisii saas uu soo war maadigiiba haa Ismaaciil noloshu dee halgan iyo dagaal iyo shaqo keliya ma nolol yar iska wanaagsan baa jira jacayl laftigiisii baa jira bal qaybta noogu waran nimka halkan baynu ku jirnay Soomaaliya xiijin bal tii naxariistay kalgacaylkana ka isagii baa su'aasha ka warwareegaya horta nolosha waxyaabo ugu macaan bay ka mid tahay inaad wax jeclaato lagu jeclaadana soo sax ma hadda waa nimco weeyaan aadna muhiim bay u tahay laakiin haddaad wax soo qabo wadi kaa baahda ka horeyso dhibteeda ma laha marka Axmed Salam iyo baahan soo Axmed Salam nin baa wuxuu yiri ma taqaanaa gabadh buu sidaa u eegay moogta wuxuu ku yiri niyo maadaa qurux badan oo sidaa darteed baan ku jeclaaday mise anaa ku jecel oo sidaa darteed baad ku qurux badnaatay goobta oo barada aragtayda bixisa xataa aad diyaariso waan waay muddadan intaan safarka ku sii jiray saacadaan sii socdo iyo xogaaga iyo saacaddii xogaaga soo noqonayo iyo buugaagkan sii iibsado aan runtii aan aad u akhrin jiray oo waxaan tababarka ku bixiyo aan rabay inaan ku bixiyo ku saabsan khibradaha ugu muhiimsan runtii waa kuwa waddanka igu soo celiyo khibradaha ugu muhiimsan in ayna muhiimaddu ahayn Maraykan baan joogaa iyo Canada aan joogaa Sweden baan joogaa UK baan joogaa inaan muhiimaddu ahayn muhiimaddu laakiin waxaa jirta dhacdaan marar badan ka maqlo galabta waan ka maqlayay ereygaas shalay aroortii waan ka maqlayay waa arrin aad u cajiiba waxaan u maleynayaa arrintaasi noloshaada iyo inaad guul gaadhay inay saameyn qayb ku lahayd su-aashaas aan ku weydiinaya waxay tahay Ismaaciil waxaan arkay inaad tahay dadka aad ugu wanaagsan waqti siinta iyo maalintii ugu farxadda leh waxay noo xaasilay dukaan maalin ka iibsanaya cabsho ay islaantii iibinaysay saay soo agtay qof walba ma jecla inuu mas'uuliyad 100% qaado dad badan waxay jecel yihiin shaqo ay saacadaynta ka soo shaqeeyaan markay ka soo baxaan iska nafisaan arrinta ma jirtaa wata inagu guusha aanu rabno yani waxay radaan dib u noqdo tababaro fara badan oo
intaan qurbaha joogaan qaatay rag badan oo kutubtooda inaad akhrisateen laga yaabo aan la kulmay tababaro meelaha qaarkood kumanaan qof ay isugu yimaadeen wixii la xiriira cilmigan ama aqoontan la xiriira inuu qofku guul gaaro ama wixii la xiriira inuu qofku naftiisa horumar siiyo markaad isku soo aruuriso aayad ama xadiis bay kugu soo celinaysaa hadda hadalkayga fiirsada gabadh doonay intaana ku dhex daraxdo gabadh buu doonay markii gurigii la isugu yimiday waalidkii iyo labadii reer ay sarkayeen gabadha aabaheed baa ku yidhi war adeer ma ninkana gabadheeda rabo yidhi haa salaada subax imisadaa la tukadaa buu ku yidhi way ka qasantay markaasuu yidhi ninaan waajibkii ilaahay daryeelin xuquuqda gabadheeda daryeel maa wanaa iska soco buu ku waxa dee marti ahaa istaadkii ismaaciil aadan micad marka ismaaciil liya waxa weeyaan waa halyey dhabaan anu odhan karaa waayo waxaan aragnay qurbaha dadku waxay noo soo noqdaan markay qurbuhu soo tufo ay ku yidhaahdaan shaqadii waad ka fadhiisatay ee u daalo ayuu yidhaha talow lay dheereed meeluu ku dhintuu wuxuu jecel inaan ku dhintaan moogta inta badan dad waaweyn oo waxbay noo tari karayn laakiin isagoo iminka qalinjiriyey sida taariikhdiisa ka muuqatay shaqayn karaya dalka intuu ka soo noqday inuu maad aragtay platforms tababara inoo sameeyo runtii wax yar ma aha waayo anu midda kale xaafadood wax ku akhrisan jirnay cumar aadan micaad baan iskolaas ahayn isku guruub ahayn waxaan aad u xasuustaa wakti ismaaciil noogu yimid alaqsa annagoo foon 2 iyo foon 1 meelahaasaan ahayn wuxuu ka yimid Pakistan fasax buu yimid waa markuu jaamacadda dhiganayay waqtiga waxaa aad u socday runtii in ardaydu ay waxbarashada dibadda aad u xiiseeyaan ismaaciil anuu laba shay baan waagaa ka guntay midixu waxay ahayd inuu nagu qanciyey waxbarashada dalka iyo ta dibaddu inay isku mid yihiin maadaama uu yahay dadkii horreeyay dibadda wax kusoo barta ee taga inay isku mid yihiin oo jaamacadda camuud inaan isku diyaarno gallo dadkii nagu qanciyey buu ahaa xabaddaa waa ka guntay jaamacaddiina waa ka baxay ma haddaana inta ilaahay sokaysa ismaaciil baa leh waxaan kaloo waxaan codsan lahaa inaad 1 minute wax ka yar horta isra joogsataan dhammaantiin inaad yar sara joogsataan aad waxaan rabaa inaad u muujisaan asa ficil iyo qalbiyan waad mahadsan tahay in lagu idhaahdo axmed iyo ismaaciil oo ah hostarkii horreeyey meeshuu khibraddana abaabulkeyga hore soo lahaa waad intoo labadiina gacmood saa u qaadnan idhaahno waad mahadsantihiin mar keliya 1 2 3 waad mahadsantihiin